hay-adda Mareykanka u qaabilsan sirdoonka arrimaha dibadda ee CIA-da ayaa soo abjartay baaritaan ay ku baadigoobaysay ciddii amartay dilkii wariyihii dhaliili jiray boqortooyada Sacuudi Carabiya Jamal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. CIA-da ayaa waxa ay si qayaxan u sheegtay in Amiir Mohammed bin Salman uu si toos ah u bixiyay amarkii lagu qaarijiyay wariye Jamal, hadalkaasi oo noqonaya mid ka soo horjeeda sheegashada dawladda Sacuudiga ay ku sheegtay in amiirka iyo gabi ahaanba dawladda boqortooyada Sacuudiga aysan ku lug lahayn dilka loo geystay wariye Khashoggi. warbixinta baaritaanka ay samaysay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee dhinaca dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda Sacuudigu ay dhowr amar oo hore cadaadis ku saartay Jamal Khashoggi in uu dalkaasi Sacuudiga uu dib ugu soo laabto ka hor intaan la qaarijin, balse uu ka dhaga adeegay amarkaasi. saraakiil u hadlay CIA-da Mareykanka ayaa sheegay in natiijada baaritaankooda ay u gudbin doonaan aqalka cad oo looga arrimiyo dalkaasi Mareykanka si tilaabada ku habboon ay kaga qaadaan dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman. warkan ka soo baxay CIA-da Mareykanka ayaa ku soo aadamaya xilli horeyto boqortooyada Sacuudi Carabiya ay isaga fogeysay dilka wariye Jamal Khashoggi oo ay sheegtay inay dileen kooxo isku xilqaamay, balse wargeysyada ka soo baxa dalka Mareykanka oo uu ka mid yahay The Washington Post ayaa horeyto u saaciyay in Amiir Mohammed bin Salman uu amarka lagu dilay wariye Khashoggi isagu bixiyay. waxaa kaloo wargeyskaasi uu horeyto u shaaciyay in amiirku uu la hadlayba Jamal Khashoggi intii aan la khaarijin oo uu ka dalbaday inuu dib ugu soo laabto magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada, balse amarkaasi uu diiday wariye Khashoggi oo markii dambe la khaarijiyay. warkan ka soo baxay CIA-da Mareykanka ayaa ah mid si weyn u taabanaya caalamka, waxaana la sugayaa in Mareykanku uu tilaabada ku habboon ka qaato boqortooyada Sacuudiga oo xiriir dhow oo ganacsi iyo mid dhaqaaleba ay leeyihiin. si kastaba ha ahaatee, warkan ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ay mar horeba go'aan ka gaareen xiriirka ay la leeyihiin boqortooyada Sacuudi Carabiya, walow qaarkood ay isku hayaan. wararku waxa ay sheegayaan in Mareykanku xayiraad uu ku soo rogi doono boqortooyada Sacuudi Carabiya oo taasi oo isugu jirta dhinacyada ganacsiga iyo waliba dhinacyada hay-adaha amniga. dhanka kale, hay-adaha sirdoonka dalka Turkiga ayaa horeyto u saaciyay in qasriga looga arrimiyo boqortooyada Sacuudiga looga soo saaray amarka lagu qaarijiyay wariye Khashoggi.